السلام الله عليكم ومد الصوماليين ميل كستو joogtaan waan idin salaamay waxaa muuqaalkan u duubayaa walaalkay Maxamed Salaad waxaa leeyahay Maxamed Salaad waxa ku dhaqmayso wax fiican maaha aboowe waan ku sheegay hooyada Bahj Shariif qof fiican waaye mana aysan ku dhibin oo qabiilka kuma nacsiinin xilli dhibaatan ma jirin Hargeysa markaa isla joognay oo aniga 2012 gurigiina aan joogay oo aan xamar u soo socday ilaahan kugu raashay Bahj Shariif qof qabiilista dadka kala jecelba ma maxaa nabe hooyada ku dhashay Mareykan dartiis hadaa u gasho oo aa u yeesay aboosaas qalad waaye hooyada way ku dhashay ana marqaadi ka in hooyada qabiilista ahayn hooyada in qof waxaan markii aashirka Hargeysa ku galeysay aabo kuma garab taagni adeer kuma garab taagni ayada dhexda ku xiratay ma fahant Maxamed Salaad dhagaaga fur hooyada Bahj Shariif balaaksi maqaayad ku shidoosa waa fahantano lacagti dhaxalka aabaha xataa hal senti kama aado siinin waa lagu soo dhalay waa lagu soo walacay uura lagu soo qaaday waa lagu koriyay rajada kaliya ee wax qabad ee hooyada ay filanaysa adiga ahayd maanta way ku baahan tahay waxba qatar iska dhigin 100 katiin iyo 100 silsiladoodii iPhone iyo balaayaha isku rarin hooyada waxay u baahan tahay maxamedkii ee walacada caloosh ku qaada ee foolatay rajadan uu ahaa inay korisay rajadana maalin ay ku intifaacaysa isla wiilka wuxuu noqonaa wiilasha Soomaaliyeed oo wanaagsan oo ku xambaaro xuquuqdaadana ma gudi kare wax uu noloshaada haaya gacanta ku haaya urada tahay Maxamed Salaad qof runta ku sheega laadahay baraankiya ee hooyada waxa ay ku sameey jirtay waxbarasho ay diijist 100 dugsi 100 iskoola lagu geeyay waana diiday iskoolka Turkiga oo fariiga ahaa inta lagu geeyay adii Faadmadu kul dhaltay Faadmo dhigtay dhameysan adigana aameel cilla uga dhaqaaqday askarinimo ku qortay si aad dalkaaga iyo noloshaada u difaacato hooyadan wax ugu darto waa ka soo tagtay Maxamed Salaad daroolo wax fiican maaha hooyada way ku baahan tahay way kugu soo jilba muruxday darta waa loo cabiisaday shaqaale u noqotay darta waa taqaanaa naagti ilaahay dahraan ee shaqaale u ahayd hooyada si adi noloshiina iyo kirada iyo biilka gurigaas ay u difaacdo aabaha Salaad Allah u naxariisto ku soo support gareeyo ku soo caawiyo garabkaaga soo istaagay laakiin hooyo aaba kala tagay qof kasta way fahmi kartaa hooyo aaba kasta oo kala tago ilmaha hooyada haysato aa ku dhabar jabto beenya ilaahay ku dhaarshay nimanka Soomaaliyeed markay naaga furaan 100% sida naagta ay qabaan mu garab istaagaan laakiin way caawiyaan aabayaal fiican oo caawiya caruurtooda oo jiraan aabayaashaas oo kamid ah ilaahay naxariisto jannasi adeerkay aboowe isqabo runta in lagu sheega u baahan tahay Maxamed Salaad maalintii 6 gashay Hargeysa joogtay ee jaalka lagu waday xabsiga lagu haay way ka dhaqaaqi kartaa hooyada iifanta hadalkayga saaxiib wuxuu ku garab istaagtay ee ku lahayd wiilkayga ilaahu cadaawaha iga fuji faatixada la ii maro Maxamed Salaad maanta dibka soo galay wal bahaaraysa maalina wax noqoto garabkeeda soo istaagtay ahayd hooyada listen hooyada Bahj Shariif إلهي مرتها كسو هنونيو إلهي سبحانه وتعالى قلبيها أسو جيديو إلهي وناق هوي هكو تسو إلهي ربي رحمن كهاي السلام عليكم دمان مد الصوماليين ميل كستو جوجتان وين سلامي ومسكينتي نسيهام محمد خوف وناكسن إنو سنين ميشاس كقرو حاسكيس حبيب واتاسا ديبريشن لي حنون لي قيانو أو أوغيستي أي دختر كل جرساه وحو دهاي hooyada way dhimatay aabahayna wuu dhintay hawadiis asooranoo habartiis ka dhiga habartay way gumaysataa habartay cuntada way iga dhameysataa si xun ay gashay hooyada la dhalatay please caawi 2018 asaas ku sameeyay way aaminta hadda dhow wuxuu maleynaysa inuu yahay maxaa lahaa hooyo la'aan aaba la'aan yahay noloshiisii waqti gelisay way isku dhiibtay ويعني وحنانيسي لعيسيسي نورليسيسي جعاليسيسي فموليسيسي قويسي كدكتي
ما فهمتي كاركيدا سيسي dhahday isticmaal wax alaalo wixii aad u baahan tahay ha baahanin dib jira noqonin qof waxa weydiisanin waxa ku balan qaadaya nolosha inta ka dhiman ilmaheeda lacagtooda ay qaadato yacni ay afku u gelinaysa soo qof ugu baahanin adoo kale ma guuleysto adoo kale haduu doorto xabiibo ما قصاريس إن شاء الله لكن أذيك آيتين كاجي عنته رسباصر كو حريسه مركا ديس المسرح يريسو ويلك أذيك أباها وتها أني ما دلين وحسب ما تقانا وحودا عنقاس دارك مسرح لها يريسك وسيدله بيركي ساقدنا أنينا تاجر له ربا أبي عنقي مرو already لا ذراتها هذا وحا اوغيدا ku dhahay hooyada sharmuuto waaye dhilo waaye saqajaamad waaye alkulisto hooyadiisoo masaakiin ah oo weliya jaad cunin oo weliya sigaar cabin oo miskiin ah oo sas dhah Soomaalida qaar la safanayso oo dhahaysay wiilkan wiil fiican waaye gabadhaas waxa ooyin ka baxay waxa xanuun ka baxay waxa qalbigeeda gubo korbilisaad ka biisma dheera adoo nolol diyaarsan ku talagal inaa heer gaarto farxadii jacayl iyo nolol samaysto kawar qofka ku dhaw adduunka haduu khiyaano kugu khiyaano noloshiisa da oo sajirin oo sheegtay 6 sano jira beentiis waa 23 sano jira maxamed 6 sano jira nolosha waa kaasa hooy malihi aaba malihi darbiiji faahan jir birmii suguntoon cuni jire hooyisa dhabarka ka jabtay u shaqeynaysa aabiisna uu taa kuleen jire hooyisa aabiisna soo yare kala tageen maxamed waxa soo dhibay maxaa kugu kalifay wallahi billahi inaa ku deyneenin ani ma fahanti because xumaatadaada madaxeeda salaamu alaykum umada Soomaaliyeed meel kasto joogtaan waan idin salaamay waxaan muuqaalkan u duubayaa walaalkay Maxamed Salaad waxa leeyahay Maxamed Salaad waxa ku dhaqmayso wax fiican maaha aboowe waan ku sheegay hooyada Bahij Shariif qof fiican waaye mana aysan ku dhibin oo qabiilka kuma nacsiinin xilli dhibaatan ma jirin Hargeysa markaa isla joognay oo aniga 2012 gurigeena aan joogay oo aan xamar u soo socday ilaahan kugu raashay Bahij Shariif qof qabiilista oo dadka kala jecelba ma maxaa nabi hooyada ku dhashay Mareykan dartiis hadaa u gasho oo aa u yeesay aboosaas qalad waaye hooyada way ku dhashay ana marqaadi ka in hooyada qabiilista ahayn hooyada in qof waxaan markii aashirka Hargeysa ku galeysay aaba kuma garab taagni adeer kuma garab taagni ayada dhexda ku xiratay ma fahantay Maxamed Salaad dhagaaga fur hooyada Bahij Shariif balaagsi maqaayad ku shidoosa waa fahantano lacagti dhaxalka aabaha xataa 1 senti kama aada siinin waa lagu soo dhalay waa lagu soo walacay uura lagu soo qaaday waa lagu koriyay rajada kaliya ee wax qabad ee hooyada ay filanaysa adiga ahayd maanta way ku baahan tahay waxba qatar iska dhigin 100 katiin iyo 100 silsiladoodii iPhone iyo balaayaha isku rarin hooyada waxay u baahan tahay maxamedkii ee walacada caloosha ku qaada ee foolatay rajadan uu ahaa inay korisay rajadana maalin ay ku intifaacaysa isleed wiilkaaga wuxuu noqonaa wiilasha Soomaaliyeed oo wanaagsan oo ku xambaaray xuquuqdaadana ma gudi kare wax uu noloshaada haaya gacanta ku haaya urada tahay Maxamed Salaad qof runta ku sheegaa laadahay baraankiye hooyada waxa ay ku sameey jirtay waxbarasho ay diijist 100 dugsi 100 iskoola lagu geeyay waana diiday iskoolka Turkiga oo fariiga ahaa inta lagu geeyay adii Faadimadu kul dhaltay Faadimo dhigatay dhameysan adigana aameel cilla uga dhaqaaqday askarinimo ku qortay si aad dalkaaga iyo noloshaada u difaacato hooyadan wax ugu darto waa ka soo tagtay Maxamed Salaad daroolo wax fiican maaha hooyada way ku baahan tahay way kugu soo jilba muruxday darta waa loo cabiidsaday shaqaale u noqotay darta waa taqaanaa naagti ilaahay dahraan ee shaqaale u ahayd hooyada si adi noloshiina iyo kirada iyo biilka gurigaas ay u difaacdo aabaha Salaad Allah u naxariisto ku soo support gareeyo ku soo caawiyo garabkaaga uu soo istaagay laakiin hooyo aaba kala tagay qof kasta way fahmi kartaa hooyo aaba kasta oo kala tago ilmaha hooyada haysato ku dhabar jabto
بينيا إلى إنكو درشة نمك سومالي مركي ناقة فران 100% سيد الناقة قبان مقرب استاقان لكني وعاويان أبيال في عنو عاوي عروتو دوجران أبياشاسون كميدا إلى نحرست جناسي أذيركي أبوه إسقابو رنت إلغو شاقا أباهانته محمد صلاة maalintii lixii soddonka gashay Hargeysa joogtay ee jaalka lagu waday xabsiga lagu haye way ka dhaqaaqi kartaa hooyada ii faanta hadalkayga saaxiib wuxuu ku garab istaagtay ee ku lahayd wiilkayga ilaa cadaawaha iga fuji faataxada la ii maro maxaan salaamaanta dibka soo galay wal bahaaraysa maalina wax noqoto garabkeeda soo istaagtay ahayd hooyada listen hooyada Bahji Sharif إلهي مرتها كسوها نونيو إلهي سبحانه وتعالى قلبي أسو جاديو إلهي وناقه هاكو تسو إلهي ربي رحمانك هاي السلام عليكم لما نمد الصومالي ملك استوجوكتا وين سلامي ومسكينتي نسيهام محمد خفو ناكسن إنو سمين ماشاس كقرو حاسكيس حبيب واتاسا ديبريشن يحنون يقيانو أو أوغيستي أي دختر كل جرساه وحو دهاي هويدا ويدي متي aabahayna wuu dhintay hawadiis asoo nool habartiis ka dhigay habartay way gumaysataa habartay cuntada way iga dhameysataa si xun ay gashay hooyaday la dhalatay please caawi 2018 asaas ku sameeyay way aamintay hadda dhow wuxuu maleynaysa inuu yahay waxaan lahaa hooyo la'aan aaba la'aan yahay noloshiisii waqti gelisay way isku dhiibtay ويعني وحنانيسي لعيسيسي نورليسيسي جعيليسيسي فموليسيسي قويسي كدكتي ما فهمتي كاركيدا اسيسي دهدي استعمال وح على لوحي او باهنتهاي اباهنين dib jibna noqonin qof waxa weydiisanin waxa ku balan qaadaya nolosha inta ka dhiman ilmaheeda lacagtooda ay qaadato يعني أي أفكو قلينيسي سو قفو قباهنين أذوك لما قوليستو أنوك لما قوليستو أذوك لهدو دورت حبيبو ما قصاريسي إن شاء الله لكن أذيك آيتين كاقيا عنتي رسباصريك وحريسي مركا ديسي المسرح يريسو ويلك أذيك أباها وطها أني مدالين وحسب ومتقانا وحودا عنقا صداعرك مسرح لها يريسك وسيدالي beerkiisa gadana anina taajiro leeraba aabi cunugi maraw already laadara tahay hooyadan waxa ogeeda ku dhahday hooyada sharmuuto waaye dilo waaye saqajaamad waaye alkulisto hooyiso masaakiin ah oo wiliya jaad cunin oo wiliya sigaar cabin oo miskiin ah oo sisdeh Soomaalida qaar la safanayso dhaheysay wiilkan wiil fiican waaye gabadhaas waxa ooyin ka baxay waxa xanuun ka baxay waxa qalbigeeda gubo korbilisaad ka biisma dheera adoo nolol diyaarsan ku talagal inaa heer gaarto farxadii jacayl iyo nolol samaysto ka war qofka ku dhow adduunka hadoo qiyaano kugu qiyaano noloshiisa da oo sijirin oo sheegtay 6 sano jira beentiis waa 23 sano jira Maxamed 6 sano jira nolosha wakaasa hooyo malihi aaba malihi darbiiji faahan jir birmay suguntoon cuni jire hooyisa dhabarka ka jabtay u shaqeynaysa aabiisna uu taa kuleen jire hooyisa aabiisna asoo yare kala tageen Maxamed waxa soo dhib maxaa ku kalifay wallahi billahi inaa ku deenaynin ani ma fahanti because xumaatada madaxay